mid ka mid ah amiirada dalka Sacuudiga ayaa ka qayb galay khamaar ama bakhtiyaa nasiib lagu qabtay magaalada Sharm el-Sheikh ee dalka Masar. Dhaxal suga Maajid bin Abdullah bin Abdul Aziz Al Sacuud ayaa khamaarka uga qayb galay ku waayay lacag gaaraysa 359 milyan oo dollarka Mareykanka ah iyo 5 ka mid ah 9 xaas uu leeyahay. Agaasimaha madasha khamaarayda Ali Shamoun ayaa sheegay in 5 ka mid ah xaasaskii uu ku bedeshay amiirka 25 milyan oo dollarka Mareykanka oo ka mid ah deynta lagu yeeshay dhaxal sugaha. In haweenka lagu deembaxo waa naadir adduunka oo dhan, laakiin wadamada qaar ee Carabta ayaa weli sharci ka tahay arintaasi. waxa ay su'aal ay ka taagan tahay waxa ay noqon doonaan xaasaska uu ku lumiyay khamaarka, laakiin waxa soo baxay warar sheegaya in amiirada ama dhaxal sugayaasha kale ee Sacuudiga ay dib u iibsan doonaan toddobaadyada soo socda, haddii kale waxay u badan tahay in laga iibsado dalalka Yemen ama Qatar. wasiirka arrimaha dibadda ee Masar Saamix Shukri ayaa sheegay in dawladdiisa ay fududeyn doonto sin haweenkaasi dib loogu celin lahaa dalka Sacuudi Carabiya haddii ay suurtagal tahay.